بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحابتا channelkayga ku xiran waa mar kale walaasheen Saara iyo muuqaal cusub waxaan rajeynayaa inaa caafimaad qabtaan axbaabteeda maanta waxaan idin wadaa muuqaalkaas quruxda badan leh sidaa wada arkaysaan waa casiir ama juice hab qurux badan loo diyaariyay waana barnaamij aan ugu magac daray isu diyaari Ramadaan qaybtiisii koowaad waxaan rajeynayaa inaad ka wada heli doontaan axbaabteeda وعصيرك دور اسبوع عبيلهد هالمالين كو ديارسو الى قياستي 6 لتر وعصيره هالمالين شيدو iyo saacada kooban waxaan rajeynayaa asxaabteeda inaad ka wada heli doontaan haddana waxaad ku soo dhawaataan waxyaabihii aan ka diyaariyay iyo qaabkii aan u diyaariyay ka faa'iideysi wanaagsan halkan waxaan ku haystaa 4 xabo limo orange iyo 2 xabo liin dhanaan sida wada arkaysaan liintii waan soo dhaqay si fiican ayaan usoo nadiifiyay haddana waxaan bilaabayaa inaan soo jarjar insha Allah ka hor liinta ayaan hore igdaal ka soo goynayaa hal xabo liin dhanaan ayaan qaaday sidaa wada arkaysaan xabaabteeda haddana waxaan bilaabay inaan soo jarjaro liintii waxba kale ma ku sameynayo macal qobkeeda ama qolofkeeda ayaan ku soo jarjarayaa insha Allah diirka ma ka soo qaadi doono qabkaas ayaan usoo kala jarjaray laba cad kadib waan sii jarjaraa insha Allah waxaan rajeynayaa si wacan ila socotaan casiirkan run ahaantii waad ka wada heli doontaan insha Allah sidaa wada ogtiin Ramadaankii waxaa loo in la isbaangeeyo si fiican la isku habeeyo waayo cibaadada waqti la cibaadeysto waa loo baahan yahay laakiin maalin walba howl aan dhamaad leen qofkii haduu ku mashquulo wax fiican maahan marka qofka qaabkii uu isku baangeyn lahaa ama casiiraadkii waxa uu diyaarsan lahaa ayaan ka bilownay maadaama channelkayga dadka ku xirnay dhalinyaro u badan iskaabulo badana codsiga meesha u badan ayaan ka bilaabaa sidaas wacan ila socda axbaabteyda waxyaabo badan way soo socdaan insha Allah oo qaabka ugu diyaar garoobeysa Ramadaan Ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo biidnillah marka hadan waxaan ka bilaabaa casiirkaas sidaa wada arkaysaan waan soo jarjaray liintii waan soo dhameeyay hadan waxaan ku soo shubayaa baaquligii aan ugu talagalay insha Allah si fiican ila socda axbaabteena insha Allah qaabka ilaa uu ka dhamaado videogana dhameyso qaabkaan u diyaarinayo biidnillah baaquliga ayaan ku soo wada shubay sidaa wada arkaysaan hadan waxaan ku soo daraa insha Allah sonkorta waxay ku xiran tahay qiyaas inta aad adiga jeceshahay mar walba waa idin sheeg qofka sidoo uu daneynayo cusbadii sonkorta isaga ayay ku xiran tahay marka sonkorta macaanka inta aad jeceshahay ku xiran tahay qiyaasta waa ku soo shubaa sonkortii biyo ayaan ku soo daray qiyaastii 1 litir camal ayaa garaafadan igu jiro kadib halkaas litir ayaan ku soo shiidayaa insha Allah haaf ayaan ku shubaa sidaa wada arkaysaan blenderka ayaan ku soo shubayaa biidnillah sidaa wada arkaysaan blenderkii ayaan ku shubay biyihii sonkortii iyo liintii aan soo jarjaray haddana sidaa wada arkaysaan way soo shiidmaysaa waan soo shiidaa insha Allah qaabkaas ayaan ku soo wadayaa kadib waxa inoo xigi doona ila isla socod wanaagsan casiirka sidaa wada arkaysaan waan soo shiiday halkan waxaan ku soo diyaarsaday baaquli sidaa wada arkaysaan baaquligaas ayaan ku soo shubay axbaabteyda waan soo shiiday waa wajigii koobaad hadda waxaan sameynayaa markii aan baaquliga ku shubo kadib waan soo daboolayaa waxaan sugaa insha Allah muddo dhan 1 saac iyo 10 ilaa 1 saac iyo 20 intaas ayuu ii daboolanaa insha Allah markii aan 1 saac iyo 10 ilaa 1 saac iyo 20 kadib ayaan isku soo laabanayna insha Allah sidaa wada arkaysaan caagan ayaan ku keedsanaa insha Allah waa 6 liters waa 6 litir waaye meesha sulku taabanaya 6 litir ku qoran tahay casiir 6 litir dhan ayaan diyaarinaa insha Allah hal mar intii aan idin soo tusiyay ayaan ka diyaarinaa axbaabteyda sidaa wada arkaysaan waqtigii aan ugu talagalay muddadii aan qabsanay ayaa u dhamaatay casiirkii hadda waxaan sameynayaa blenderka ayaan mar labaad ku soo shubayaa mar labaad ayaan dib u soo shiidaa axbaabteyda insha Allah waxaan rajeynayaa si wacan ila socotaan markii oo yaalay 1 saac iyo 20 kadib ayaan haddana dib waxaan ugu soo shubay qalaabada ama blenderka sidaa wada arkaysaan mar labaad ayaan soo shiidayaa haddana insha Allah taala
haddana waxaan bilaabayaa inaan soo shido insha allah. sidaas wacan ila socda axbaabteeda insha allah. una soo shidmaya juuskeeni ama casiirkeeni sidaa wada arkaysaan. waa markii labaad insha allah inay la socotaan ayaan rajeynayaa. qaabkaas ayuu usoo shiidmaya axbaabteeda. marka uu si fiican usoo shiidmo kadib ayaan isku soo laabanaynaa insha allah. saxaay sidaa wada arkaysaan. haddana waxaan soo diyaarsaday baaquligii aan ku miiri lahaa iyo shaamiirkii ama caanmiirkii. haddana waan soo miirayaa ama waan soo shaqshaqayaa juuskii sidaa wada arkaysaan. qaabkaas ayaan kusoo wadaya axbaabteeda insha allah. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow please subscribe. haddii aa hore inoola joogto oo ka hesho muuqaalka like garee, asxaabtaadii eeladaadan u sii sheer garee. wixii fikrada ana xagga commentiska iigu soo qora. fikradihiina waa ii muhiim. qaybtii koowaad ayaan miri sidaa wada arkaysaan axbaabteyda. kadib garaafada ayaan kusoo shubayaa. haddana waxaan soo miirayaa qaybta labaad insha allah. qaybta labaad oo ku hartay qalaabada ama blenderka ayaan soo miirayaa insha allah. qaabkaas ayaan usoo wada miiray axbaabteeda. hadda marka ool waxaan iskugu geynayaa sidaa wada arkaysaan. baalkii caagii aan ugu talagalay inuu ku aado fridge-ka waa 6 liters. caagaas waxa uu deeqaya. hadda juuskii aan kusoo shubay casiiraadkii. biyaha kale oo ka harsan oo ii diyaarsayn waan kusoo daraya. markii aan kusoo daro kadib ayaan isku soo laabanaynaa insha allah. qaabkaas ayuu ugu dambeyn kusoo baxay axbaabteeda sidaa wada arkaysaan. indhihiin ayaa idin macallin ah. maasha allah tabaarakallah. waa 6 liters oo casiir ah. fridge-ka ku keedso. maasha allah tabaarakallah. inta ka dhiman waa inta aan bakeeriyaasha kusoo shubay axbaabteyda. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. jazaakumullahu khayra. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maca ricaayati illah.